Halkani waa Waasan Official. Fadlan daawada nagu caawi subscribe, like iyo commenti. Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda ICJ ayaa diiday codsigii ay dowladda Kenya u gudbisay maxkamadda kuna dalbatay in dhageysiga dacwadda labada dal ee loo ballansan yahay 15 Maash dib loo dhigo. Qoraal kooban oo ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in kadib markii ay maxkamaddu eegtay qoraalada ka soo gaaray labada dal ay go'aansatay in aan la bedelin waqtiga loo qorsheeyay in dacwaddu la qabto oo ku beegan 15 bisha Maash. Dhageysiga ayaa ku dhici doona qaabka fogaan aragga ah sida ay maxkamaddu qoraalkeeda ku sheegtay. Dowladda Kenya ayaa dhawaan u gudbisay maxkamadda ICJ in aysan ka qaybgali karin dhageysiga loo ballansan yahay bisha dambe iyadoona sheegtay in cudurka safmarka ee COVID-19 uu saameyn ku yeeshay howlihii guddiga qareennada ee ku matalaya dacwadda hortaalla maxkamadda. Hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay iyadoo tallaabada Kenya ka jawaabaysa ay qoraal u gudbisay maxkamadda ayna ku caddaysay inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda bilaabanaysa bisha Maash oo aysan doonayn in dib u dhigis kale lagu sameeyo. Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dube ayaa Khamiistii ka sheegay shir jaraa'id uu ku qabtay Muqdisho in Soomaaliya ay diidan tahay codsiga Kenya ee ah in markii afraad dib loo dhigo dhageysiga kiiska dacwadda badda ee u dhexeeya labada dal. Waan diidnay codsigii afraad ee Kenya u gudbisay maxkamadda ICJ oo ahaa in dib loo dhigo dacwadda badda ee u dhexeeya labada dal. Cadaaladda oo daahda waa cadaaladda oo la diiday waa inaanu tagnaa maxkamadda 15 Maash ayuu yiri wasiirka Warfaafinta Dowladda Federaalka ee Soomaaliya.